maamoy dhiba ila soo martee miisaan xaqa lama magi karee minika jannada mawlaha ka dhigo maamoy macaan mawlaha ka dhigo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا برنامجكي دحل هويو أدخل الساعتين برها بالشدة قيبت يوتيوبك برنامجك حدين كغي إيمانا يا قاهرة مقال لما دحل دلك مصر مانتا هدو إلهي كرار نقضى مشروعين وحنو قنايا فطيرة تفاح أما أبل باي قف سوء يقانو أبل باي لو نوع جرتو نوع يرير إي نوع واوين فطيردان maanta waxaan ka dhigaynaa nooc waaweyn hadii ilaahay karaal noqdo waxaan ugu talagalnay ama ay tahayba qayb kamid ah afurka maanta saa ogtihiinba waxaan ku jirnaa 10kii dilxajja ama arafa 10kii bari ee ugu fadli badnaa ayaamaha nolosha ayaan ku jirnaa kuwii ilaahay ku dhaartay kuwii ilaahay jecel yahay kuwii ilaahay adoomadiisa uu u soo dhawaado markii la gaaro maasha Allah ilaahay hanaga dhigo dadkii soonkoodii salaadooda la aqbalo sadaqadooda iyo zakadooda laga aqbalo kulli amaal tayyibin ee sameysanayaana laga aqbalo maanta ilaahay hadduu karaal noqdo insha Allah waxay noqonaysaa fatiiradan qayb kamid ah afurka maanta afurka maanta ama fatiirada maanta aan sameynayno waxaan ku sameynaynaa horta mashruuca ku fulin doonaa kilo oo ah tufaax xabad tasliinta oo lagu dhex miirayaa tufaax waxaa ku dareynaa sokor waxaa ku dareynaa zubdo waxaa ku soo haray kana burka waxa waa taqriiban kilo rubac dhiman waaye qof walban intii qiyaastiis kule uu sameysan karaa anaga waxaan ka rabnaa laba kuusoo waaweyn oo qaybna gogol ah qaybna hagoog maasha Allah I love af Soomaaliga markaa ku hadlaayo qaybna gogol qaybna hagoog maasha Allah okay waxa ku dareynaa laba xabo oo ukun ah ku dareynaa waxa ku dareynaa milix ku dareynaa iyo baking powder waay marka insha Allah waxa kale noo iman wax kalena loogu maqan yahay ma jiro mashruuca intaas ku fulnayna horta iyo waxa ku fulnayna digsiga tufaaxa ku karsan lahayn iyo saxankii aan fatiirada ku duban lahayn intaas u baahannahay iyo qorile waxa u baahanahay qorigii lagu fidinayay burka lagu fidinayay intaas u baahanahay okay waan guda galeynaa mashruuceena hadii ilaahay karaan noqdo stepan horta burka ka bilaabeena burka caadatan waxa waaye waxaan ku darnay subjada ku dhex daray sasa ugu rafaaqayna ma aha nooci caadi loo kasi jiray ma aha oo maxaa la dhahay waxaan ku tilmaamay ma aqaano laakiin nooca hore u barateen maaha zubdada iyo waxa la isku jajabinayaa iyo zubdada iyo burka la isku jajabinayaa hadii ilaahay yiraahdo sokorta lagu daraaya sokorta ku dareena okay waxaan kaloo ku dareena cusbada iyo baking powderka oo la isku dareena isku rafaaqayna bas iyo u sameystaa dadka isku si ma aha laakiin aniga systemkaan aan jeclahay inaan u sameysto markii aan sidaan isku rafaaqo oo isku dheelitiro maybe 150 cunto kale oo saan loo sameynayaa taqaaniin laakiin marka aniga saan isku rafaaqo laabana waa soo sameynaa insha Allah saan isku milno ujeediyeen burka iyo zubdada isku noqonayaan iyo sokorta iyo xoodhan okay soo qaadanayna ukunta ولا قيمة هذا سكريجنيسا وكنت سكريجنيسا لكن حاكلو قدرنا هيك وكلا أوزيه بس
intaas yar biyo ku daray la'aana waxaa rabaa si fiican inay iskugu milanto. qofkii rabo biyaha aan rabin inuu biyo ku daro xoogaa caano ah uu ku dari karaa. markuu caanaha ku daro waxa waaye jugjug meeshaada joog waaye, yani isku mid waa xoogaa yaroo caano ah ama xoogaa yaroo biyo ah ama xoogaa yaroo subag oo saa'il ah ahayn shay, xoogaa cream, xoogaa chocolate, xoogaa ahayn shay wax liquid inuu yahay oo maaragtay burkii sii jilcinayo okay ku noqonayo. maasha Allah soo soo qastay burkeygu waa ay qasan yahay. inta tufaax aan ka sameynayo intaas ay sii ahaado meeshaas insha Allah oo soo laabanayo insha Allah. step 2 waan bilawnay. sugdadii aan hoos ugu jirto tufaaxan ugu jiro sokor yar aan kor shubnay. milixdii ka ilaaway xoogaa milixa ku dareen laano isku macaanayna hadii kala xir milixa ku dareena sameeyna insha Allah. 5 daqiiqo aad ugu badnaan kadib waa soo laabanaa insha Allah. sorry liintan ka ilaaway liintan ka ilaaway inta xabbo liinta ahaa aan ku daro kumiro kumiro inshallah isku dhalaalama. okay soo gaaray xilligii saxanka diyaarinayna ayaa soo qaadanayna dhig adagtahay sugdadaanay dhaqsama soo go'aysay dhig adagta. saxankan caadatan waxa uu ku dhago laakiin ana baab al-ihtiyaat ayaa ugu sameynayaa in case oo isdhaw ku dhag no dhaqsi oo booda la rabo oo samaxdo waxa ku dhagin. okay saxankan diyaar u yahay. mashruuca inuu kala dhimaado ma fiicno, wax walba waxa fiican inay ku yaalaan. burkeeni noo qasnaa tufaax intuu noo badbadaayo rabnaa inaan ka faa'iidaysano diyaarsano maxaa la dhahaa la'aana burka anaga wax yar inuu isdhex galan ka rabnaa maahane ma ka rabno inuu maxaa la dhahay inuu wax noqdo ma rabo yani inuu qamiiro ma rabo bas waxaan rabaa inuu isdhex galo kaliya sidaan hadda uu yahay. okay igu mid waa hagog saa hore u sheegay midna waa gogol. okay marka xasmeenayna hadda waa diyaarinayna لأنه baking powder ku jiro ukuna ku jirto zubda ku jirto saas ka badan oo khamiiray mala marka saas darteed waxa waaye saanaan ku fidsanayna insha Allah. masha Allah soo fidiyay waan xildahay saxanka la ekeysiina hadeertan waxyaaba zaa'idkeedan waa iska tuureysaa saxanka la ekeysiina waxyaaba zaa'idka iska bixinaysa. okay fatiirada intaan waas la garanay. waxaa noo haray hadda inta saxanka kusii waxaasnayso kusii dhigayso saxanka diyaar uga noqonayso waxaan sameynaynaa waxaan sugaynaa maxaa la dhahay horta tufaaxan sugaynaa dabka noo saaran
iskala suqo. Kadibna waxaan samaysaneynaa qaybta kala burka kana qaseena sasku cajiinina piece of art maanta inaan sameyno rabnaa cake oo cake macmuul ama laga soo shaqeeyay. marka insha Allah waan sameynaa masha Allah. qaybta labaad burka ama hagoogta markaasaas u firaashtid u gubishid kala bixisid kasasab goonaysa in xoogaa isla ega u goonaysa si aan decorationka oo sameyno ama qurxinta keega quruxdeeda. masha Allah cajiinka caraftiisa jaaib waa zubdada iyo ukunta baking powderka isdhexgalay sasata vanillada xataa waa ka ilaaway vanillada waa ka ilaaway laakiin caraftiisa yaa jaaib leh inta saar ku filan ka badan camal. marka sasa u asaasayna marka saas u sameyno diyaar u yahay asha isgudub fatira tufaaxa saxanka lagu sameynayo ama apple pie saxanka lagu sameynayo aragteena uma leenayo. meeshaan markay saas noogu joogto alaabtan imaaneyna faaxeenino karkarayay umara halkiis xoga biyaa ku shubay safaraa ku daray zaytada ku daray waxaan ku daray muxuu ahaa duulahay kuuroon yahay biyo iyo safar haa cusbo ku daray shakligiisa weligiisa ma ahana uma leenaya. intuu ka bislaanayo sugiina kas xogaa waxaa la rabaa inuu dhalaalaa la rabaa tufaax burka la dhexgelinaya mugtaasoo soo taagtaagana ma fiicno inuu koobar gareeyaa la rabaa waxyaalo badan loogu baahan yahay dhicaan inuu yeesho inuu maxaa la dhahaye inuu dhalaalo asaga ahaantiis bislaa baxata. hadda xoogaa wax yaraa qaboojinayna kadib waxaa ku dhex shubeynaa fatiirada ku dhex shubeynaa insha Allah saas ula socdo. masha Allah fatiiradina sasi kusoo baxday. dabcan tufaaxiyaan dhexda ugu shubnay geedihii haddaad gogoonayna ujeedeenay korkaasaas isdhaafaan u saarnay sida dharka oo kaleeto. hadda ukunaa marineynaa markaan ukunta marina aan ku wada dhameyno waxaan gelinaynaa furinka 180 darajo 180 degrees. markaan gelino nusu saaca oo kale ku haynayna intay ka gaduudanayso half an hour ina tahay. marka insha Allah saas ugu socdo markaan soo diyaarino soo laabanayna hadduu ilaahay karaan noqdo biidni illaahi tacaala. maclish maanta waa la soomeeyahay iska dulqaata waqtigana casar gaab waaye marka iska dabiici in qofka maaragtay maxaan ku dhahaa codkiisa u gaab. marka kaas ukunaan ku qasqasanay rafta dhadhanka wax kasta masha Allah waa kaa furinka gelinayna insha Allah waa kaa markaa soo laabanayna insha Allah markaa kasoo bixina rabaa. masha Allah allahumma salli ala sayyidina Muhammad. fatiira aan caadi ahayn ayaa kasoo baxday. xoogaa zubda ku celinayna dabcan
xashooda tufaaxa dhexday ku jirtaa. marka insha Allah saliidda korka marina عشان خاطر qurux badan saa ugu dhigno. fatiiradayna jaahiz waaye 100% ما شاء الله. فطيرة تفاح قفكي يقانا مع أفضل باي طريقة ugu sahlan oo sameystaa idin sameeyay. qof walba طبعا wuxuu jecel yahay ku sameysana أكيد في النهاية لكن ما شاء الله naga xageena تمتعون لله تعالى وقادينا وقوجنينا حنقشنينا ثلاجة هدو هيدو عيدين isku dhigantay oo dhidhin insha Allah ayaa cunayna.